Ma ogtahay in buro-biyood yaryar oo ku samaysmi kara ugxantaada ay sababi karaan caadadaada khalqasha, miisaankaaga kordha iyo cilad ku timaada xagga dhalmada. Haddaba maanta aan si faahfaahsan kuugu sharaxo buro-biyoodka, astaamaha ama calaamadaha lagu garto iyo sida si dabiici ah iskaga daweyn karto ama si aad si dabiici ah xal ugu heli karto haddii aad isku aragto calaamadahan aan kuu sharixi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wacano wanaagsan idil ahaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo caafimaadka. Magacaygu waa Sagal Cabdilaahi, ahna kalkaalisa caafimaad. Halkan waxaan aalaa toddobaadkiiba mar idin kula wadaaga xogo muhiim ah oo ku saabsan caafimaadka haweenka. Maanta waxaan ka hadlaynaa xaalad loo yaqaano PCOS oo af Soomaali ahaan loo yaqaano buro-biyood. Haween badan ayaa la tacaalaya xaaladan loo yaqaano buro-biyoodka iyagoon ogeyn, halka qaar kalena ay og yihiin balse aan weli xal fiican laga gaadhin sidii loo daweyn lahaa. Waxa muhiim ah inaad fahanto sababaha keena, calaamadaha lagu ogaan karo iyo sidoo kale habka lagu maareyn karo si aan u joogteyno caafimaadkeena. Haddaba haddaan isla eegno waa maxay PCOS? PCOS-ku waa xaalad caafimaad oo la soo dareesta haweenka, taasoo keenta in tuumbooyinka ugxantu ay ku samaysmaan burooyin yaryar oo biyo ah. Xaaladdan waxay saameyn ku yeelataa shaqada ugxanta, caadada iyo awoodda taranka. Waxayna dhacdaa marka hormoonada taranku ayna isku dheelitirnayn, gaar ahaanna markuu badan yahay hormoonka loo yaqaano androgynku. Haddaba astaamaha lagu garan karo buro-biyoodka waxaa ka mid ah haweenka leh buro-biyoodku waxay badanaa la kulmaan caadado aan joogto ahayn ama caadadoo dib uga dhacda waqtigeeda. Tusaale ahaan, haddii ay haweeneydu heli jirtay saykalkeeda ama waqtiga periodkeeda heli jirtay 20 cishaba mar, waxa samaysmaysa inuu dib uga dhaco ilaa 35 maalmood iyo 40 maalmood iyo wax ka badanba. Mararka qaarna waxa dhacda inuu caadadu ay ka maqnaato bil, 2 bilood, 3 bilood iyo wax ka badanba. Tanina waxay ka mid tahay calaamadaha ugu badan ee lagu garto buro-biyoodka. Haddii aad aragto timo badan oon caadi ahayn oo kasoo baxaya jidhka sida wejiga, dhabarka, caloosha ama meelaha kale ee haweenka caadiga ah aysan timo badan kasoo bixin. Sidoo kale haddii aad aragto finan badan oo kasoo baxaya wejiga iyo dhabarka, ama haddii codkaagu uu noqdo mid weyn oo u eeg codka ragga, tan waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa inaad qabto buro-biyoodka ama waxa loo yaqaano PCOS. Sidoo kale calaamada ugu weyn ee lagu ogaan karo inaad qabto buro-biyoodka ama waxa loo yaqaano PCOS waxa weeye inay kugu adkaato inaad uur qaado. Waana calaamada ugu caansan ee lagu ogaado inaad qabto xanuunka loo yaqaano PCOS. Sidoo kale haweenka leh buro-biyoodka waxaa sahlan in miisaankoodu si fudud oo xawli ah u kordho, gaar ahaan wareegga caloosha, taasoo loo yaqaano belly fat, kaasoo ah dufan badan oo caloosha wareegeeda ku samaysma. Halis caafimaad oo sonkorowga ka mid yahayna keeni karta. Dhinaca kale, haddii aad aragto madow maqaarka ku samaysmaya, laabatooyinka qoorta ama boodiyooyinka iyo kilkilada, tani waa calaamad kale oo muujin karta inaad leedahay buro-biyood. Maqaarkoo isbedelaya ama madow galo waxa sababi kara dheelitir la'aanta hormoonada. Haddaba maxaa sababa oo keeni kara buro-biyoodka? Buro-biyoodka waxaa keeni kara dhowr sababood oo ay ka mid yihiin isku dheelitirnaan la'aanta hormoonada. PCOS-ka ama buro-biyoodku waxa sababa hormoonada oon dheelitirnayn, gaar ahaan heerka androgynka oo kordha iyo hormoonada kale ee taranka. Sidoo kale waxa keena iska caabinta insulinta waxa loo yaqaano. Haweenka qaar ee leh PCOS-ka ma isticmaalo jidhkoodu insulinka si fiican, taasoo keenta in heerka sokorta dhiigga uu kordho iyo in jidhkoodu soo saaro androgyn badan. Sidoo kale buro-biyoodka waxa keeni kara cudurrada lagu kala dhaxlo genetiga, oo haddii waalidkaayo kale uu qabay PCOS ama hooyadaayo kale ay qabtay PCOS ama walaasha, waxa laga yaabaa inaad adiguna sidoo kale aad develop garaysid PCOS. Miisaanka oo kordha iyo baruurta calooshu waxay kor u qaadaa halista PCOS-ka, maadaama ay saameyn ku yeelato koritaanka hormoonada iyo insulinka. Maxay tahay haddaba halista ka dhalan karta haddii aan PCOS la daweynin? Haweenka qaba PCOS waxay halis u yihiin cudurrada sida type 2 diabetic, sonkorowga nooca 2, dhiigkarka, cudurrada wadnaha, kansarka ilmo galeenka, dhalmo la'aanta. Haddaba su-aasha meesha taala waxay tahay sidee loo maareeyaa PCOS? PCOS-ka ama buro-biyoodka waxaa lagu maareeyaa isbedel hab nololeed, waxa loo yaqaano lifestyle change. Tani waa talaabada ugu horeysa uguna muhiimsan, inaad cunto isku dheelitiran oo ay ku badan yihiin khudaarta noocyadeeda kala duwan, inaad samayso jimicsi joogto ah, socod 30 minute maalin kasta, miisaankaagood iska yareyso oo miisaankaagood iska rido, daawooyinka hagaajiya caadada kana saara khalkhalka iyo daawooyinka insulinka balance gareeya, samee daryeel joogto ah iyo baaritaano caafimaad oo joogto ah. Ugu dambeyntii, PCOS ama buro-biyoodka waa la maareyn karaa adiga oo sameynaya isbedelo yaryar oo fudud, taasoo ah inaad miisaankaaga rido,
cunto caafimaad lana aad cunto. ugu dambeyntii waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka heshay barnaamijkan si aad ula socoto barnaamijyo kale oo badan fadlan like iyo share iyo subscribe. intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno caafimaad san.